ninkan waxaa la yidhaahdaa Sharmaake wuxuu ka soo jeedaa qoys wanaagsan oo nin aqoon leh dhalinyarana ah oo shaqaysta iskana kafeeya noloshiisa aasaasiga ah da'diisuna waa 30 jir Sharmaake hal arrin ayaa ku taagan arrinkaasoo ah inuu raadinayo gabadh dhammaystiran oo uu la wadaago noloshiisa gabadh kasta oo uu la kulmaa wuxuu ku arkaa goldalool ninkan xaaladiisu sidaa tahay ayaa maanta waxaa loo soo tilmaamay guri ay ku nool yihiin gabdho guriga oo ka kooban dabaqyo badan dabaqyadaas oo ay degan yihiin gabdho wanaagsan oo dhammaantood aan kala dhicin gurigan wuxuu ka kooban yahay dabaqyo badan mid walbaaba waxaa ku nool gabdho wanaagsan gabdhahaas oo leh dabeecad wanaagsan qurux iyo aqoon diimeed kuna wanaagsan barbaarinta carruurta iyo ka warhaynta nimankooda waan hubnaa inaad ka heli doonto balse ogow dabaqa aad ka gudubtahay dib ugu soo laaban maysid mudane ku soo dhawow qaybta hore hablaha qaybtan ku sugani waxay si wanaagsan u yaqaaniin siday u noqon lahaayeen hooyo guri oo wanaagsan wallaahi waa qoftaan doonayay ee aan u baahnaa laakiin maan dabaqa ka sarreeya iyaguna sida ay yihiin armay kuwan ka sii wanaagsanaadaan haddaba mudane haddii aad ku soo qanci weyday gabdhihii aad ku soo aragtay qaybtii hore gabdhaha qaybtan ku sugani waa gabdho si wanaagsan u soo bartay siday u noqon lahaayeen hooyo guri oo wanaagsan intaa waxaa u dheer waxay yaqaanaan sida loo tarbiyadeeyo carruurta maasha allah waa taan rabay laakiin maan qaybta ka sii sarraysa soo eego hablaha ku sugan armay qaybtan ka sii wanaagsan yihiin gabdhaha gurdoonka ah ee ku sugan qaybtan waxaa la soo baray siday u noqon lahaayeen hooyo guri oo wanaagsan iyo sida loo tarbiyadeeyo carruurta waana gabdho iimaankooda uu aad u sarreeyo maasha allah waaba taan rabay intaan oo dhan ayay xambaarsan tahay yaaba heli kara laakiin maan soo eego dabaqa kale ee ka sarreeya armay joogaan kuwa ka sii wanaagsan gabdhaha gurdoonka ah ee ku sugan qaybtan waa gabdho la soo baray siday hooyo guri oo wanaagsan u noqon lahaayeen carruurta sida loo tarbiyadeeyana yaqaan iimaan wanaagsan leh oo dhinaca diinta ku wanaagsan waana gabdho qurxa badan oo dayax 15 ah u eg intaa kuma ekee waa gabdho u carbisan sidii ay u koolkoolin lahaayeen raggooda waan hubnaa inaad ka heli doonto hablaha ku sugan qaybta tan mudane waaba intaan rabay oo haddii qaybtan hablaha sidan ay ku sugan yihiin kan ka sarreeya maxaad moodaa iyo walle fadhi iima yaal
waa inaan kan ka sarreeyaa aan aadaa oon soo eegaa. libaax qaybtan wax habla ah oo guurdoon ahay kuma sugna, waxaana kaaga soo horreeyey oo soo booqday dabaqan 4 milyan oo nin, dibna loogama noqon karo. waa ka xumahay ibtilada ugu habsatay. waan ka xumahay waxa igu dhacay. kama aanan faa'iidaysanin dhallinyaronimadeydii, keliya waxaan ku mashquulay inaan helo qof dhammaystiran. sahankaygii guurdoonka waxaan soo bilaabay anoo dhallinyaro ah. si aan u helo qof dhammaystiranna waxay igu qaadatay 20 sannadood. waxaan ilaaway in adduunyadan uusan joogin qof dhammaystiran. sidoo kale waxaan ilaaway xadiidkii rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam uu yidhi, haweenka waxaad ku doorataan 4: diinteeda, maalkeeda, nasabkeeda iyo quruxdeeda. haddaba iga dambeeyow yuusan waqti kaa lumin. fasirka qisada. arrinkan wuxuu ku dhacaa rag iyo dumar badan, waana wax caadi ka ah adduunka. qof walbaaba wuxuu raadinayaa qof dhammaystiran. adduunyadana maba joogo qof dhammaystiran. midda kale adiguba ma dhammaystirnid, marka sidee baad ugu fakaraysaa inaad hesho qof dhammaystiran? aanu dhaadhaco dulucda qisada. jarmaarka markuu soo galay sahanka guurdoonka waxay da'diisu ahayd ama uu jiray 30 sano. si uu u helo qof dhammaystiranna waxay ku qaadatay muddo dheer. gurigii uu soo gelayeyna wuxuu ahaa marxaladaha adduunka iyo noocyada geeyaanka ah ee uu la kulmo qof walba oo mustaqbal raadis ah. qayb walba oo uu ka soo gudbayey waxay ahayd cimrigiisa oo soconayay. maadaama shuruuddu ay ahayd qaybta aad ka gudubto dib uguma laaban kartid, waxay la macno tahay da'da iyo waqtiga kugu soconaya waa uun ay ku jaraan, ma ahne dib looguma laabto. haddaba taladaydu waxay tahay qof walba oo dhallinyaro ah qaadina kara mas-uuliyad, garanayana waxa guurku yahay iyo wada noolaanshaha, iskana kafayn kara noloshiisa asaasiga ah, ha guursado, dibna yuusan u dhiganin, hana ogaado inuusan weligii helaynin qof dhammaystiran. dhammaystirku wuxuu ka yimaadaa labada ruux ee isguursanaya, oo midba ka kale uu u buuxiyo inta ka dhiman. halkaas ayuunbaadna ka heli kartaa dhammaystirka aad doonayso.